suldaankii muuse ee halkaa ka maray ee go'aana ka qaatay iyo inaan anigu sidii abgaalka faataxa qaadanaya taasi waa hawl aniga ii taallabaan idinku yidhi aan bogsado shawir moogaabanaya culimadii ugu waaweynayda deegaanka ka soo jeeday qandaraaskii bay qaadanayaan boqorradii caaqiladii iyo salaadiintii iyo odayaashii iyo ummaddii meesha fadhidayna nin walba mashruuca qaybtiisa loo shubay waayo xulafadan yaryar ee odayga ku xarafeysan ee uu jaamac hogaaminayo ee uu aabbaha u yahay waxa weeye waxaynaan arag wadwad ma laha wala daalin salaada marka la dhamay wala daalin baa la yidhi beenaala ilaahay baa nacay waalaa ina naclata allahi cala alkaadibiin qofkii been sheega nacdasha rabbi ha ku soo degto caadi ma ila haysataan waddankan joogo weli salaadii may gaadhin waayo dabcan maan jeclayn mar labaad ku soo noqdo laakiin arrinta rasiirkay dadku xiga weydiiyeen arrinta rasiirku waa dhaqan aan idaacadda radio alcadaala hore looga badnan 7 sano waxaan isiriyanaynay taliskii kan ku horreeyey oo aan waxa weeye bad iyo berri iyo bannaanba isula baxnay hase ahaatee weli maanaan muxuu ahaayey waxaan wada hadalay siyaasiyiin madaxweynayaal wasiiro madax dhaqameed waxaan soo wada shaqeynay siyaasadda Soomaaliyeed iyo ta Somalilandba dhaqanka waxa weeye looga bartay caaqilka idaacadda radio alcadaala waxa kamid ah waxa soo hebel yariye dhageysta iyo cadaynta abi taariikhda idaacadana waxa ka baxday rasiirka taasna de waa kii lagu wanjalay ee aan ku galay xabsiga maamaraadka lagu dhigayay marka qisada ay nala martay aan idinka sheekeynayay qaabka ay qisadu u dhacday ayaa horta kaliftay in rasiirkaasi dibadda u baxo wayna ka firsan weyday oo runtii aad bay uga firsan weyday laakiin waxaan doonayaa bal arrinta banka iyo xukuumadda cusbayd waxa nagu kala dhex maray ee khusaya arrinta banka oo qolaxday ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay ala inna naclata allahi cala alkaadibiin anigana allaha ka yeelay nacdale ku soo degto kuwa beenta sheega oo waa aayad quraana oo ku celinaya ala inna naclata allahi cala alkaadibiin kuwa beenta sheega nacdale ku soo degto oo de waa aayad quraana aniga iyo qofkii kale de been sheegaba waxa weeye aayadaasi ayaa dul hooganaysa arrinta banka qolcaday ninka runtii ninkaasi saan idin sheegay qodobkeeda koobaad maalintii koobaad waxa tagayay Daawud Garxatiis oo dhan baa tagayay banka qolcaday waxaan idhi maxaa loo socdaa malaayidu de lama socotaan qisada banka qolcaday waagi xaj Cabdiwaraabe dawladii kacaanka waxa ku dhintay 2 qof dawladii Axmed Siiraanyo dad baa ku dhintay dawladii Muuse Faraay ka laabatay waa markii iyo dawladii koreeyay Soomaaliland oo dhan hase ahaatee waxa ka go'an xukuumadda cusub iyadu inay xidho xidhitaankuna waa 2 nooc oo waa qaabab kala duwan qaababkaasna wixii mujtamaca u dana qayb baan ka ahay wixii aan mujtamaca dana u hayna de madaxweynaha kursiga saaka ku fadhiya inuu kursiga ku fadhiisto laftiisa ama de iibsan lahayn qayb ka noqon lahaa oo aan de yeeli lahaa marka horta de taliskii hore warmooglaan kumaan ogeyn aqoon isugu kayo laaban na kumaan ogeyn taliskan dambe na waxa filayaa de 12 sano soo wada shaqeynayo ismaal hayna aqoon baa isugu kiin laaban laakiin waxaad moodaa inay aqoon isugu kayo laabnayd oo runtii aqoon isugu kayo laabnayd marka qolooyinkiina waxbaa la qarxinaya iyo halkan ay ka dhacday iyo liibaan wax soo tuuraya liibaan shaqooyinka iyo dhaqamada ma yaqaano waxaan idinka sheekeynayaa waa qisadii dhacday ee dalka igaga soo dhacday waxaan yeelaya waxaan idinku yidhi war markaan cusbitaalka ka baxo ayaa aniga go'aan ii yaalaabaan ku yidhi maadaama caaqilkii ahaa sidii suldaan xasan caaqilkii wuxuu energy bay u baahan yihiin shar iyo khayr ba waxaad galayso energy u baahan yihiin jaalaya hase ahaatee qisadani waxay ahayd wixii dalka ka dhacay taariikhda in history radio alcadaala oo daawanayseen iyo anigoo liibaan oo magacayga ku hadlaya waa markii koobaad ee cimrigaygaan idinku yidhi aan keeno waxaan qof isweydaarsanay oo ay ka mid tahay rasiirkaasna waxa kow ka ah waa dhaqan xumo in qof waxa isweydaarsataan oo dibadda soo dhigto
laakiin xabsigu qayb ka ahaa iyo jalaafooyinkii iyo mu'amaraadkii ee aan diiday inaan qayb ka noqdo waayo waxaan idin bilaabayaa arinta qisada horta jaamac baan horteed ka wada hadalnay wuxuu yidhi jaamac gaabuush libaanow bankaa waynu xidhaynaa meeshana maalgelin fara badan baad gashato dan yarta ahoo ilaa salaxlayo laydh kalehoo caafimaad kalehoo suuqan waaheen dhalinyaradii dan yarta ahoo hooyadii lahoo wax walba leh ummaddaa garxajisna ereygaa tiraahdo qayb bay ka tahay oo way dhegaysanayaan waxaan dee ereygaan odhanayaa dadku waa iyo waa adigoo kale ee ereygaan odhanaya waa erey dee inaga iibsamaya inuu ahaado waa waxyaalihii dee amar diidada ah ee marka dee suuqa lagu gelinayo inuu isagu taliyo doonaya maya inaan wixii ummadda aan caaqilka u ahay u dana oon tale ka dhiibto haddii layla yimaado waa sax haddaan lagula imanna dee goobteedaba ma fadhiyo cidba ismaaf dhaafayno marka waxaan laylaba imanin maxaa loo odhanaya ma inuu isagu taliyaa la doonayaa ma inuu ismaqiiqaa doonaya wixii lagula yimaado odhaahdeedaad ka odhanaysaa waa laba qaybood wax talaa lagaa weydiinaya waxbaad ka dhiibanaysaa fikirka halkaad ka taagantay waxna waa lagugu qasbayayo waa tan banka qool cadayo taageer oo lacagtan shir-saxaafadeed u qaado qaybteeda kalena way soo socotaa taliya baan idhi waxaan xaggeed ka keentay wuxuu yidhi dowladdii waxay tidhi lama hor istaagi karno oo ninkani guddida garxajis way isku xanaaqsan yihiin wasiiradana isma fahmaan markaa cid aan u dirno oo uu banka qool caday tago maaha markaana dee lasoo qorayo maayir xiniyaa lahayo maihi wasiir xil laga qaadayna maihi iyagaan ku idhi laakiin hadalkii way duweyno iyagaa qoraalkaa soo dhigay markii ay jabsadeen facebooka markaa goobtaan laakiin ka idhi deetana waxaan idhi war arrintaa dee ma odhanayo sabab baan markaa liibaan u odhan waayey ma ku xumeebaa ma ku jiqsiibaa ma dowladay maxay tahay sababta aan u odhan waayey u tegi waayey maalintii hore markaa daawud garxajis oo dhan baa loo yeeray daawud garxajiska tegaya waa ganacsato culimo maayir wasiiro iyo odayaal dhammaan dadkaa tegaya waxaa la yidhi dadweynihii reer miyiga ahaa waxa u soo sheegtaan in la xidhayo bankii qool caday haddaba maqlaysaa oo ay faa'iido u tahay liibanow soo kac baa la yidhi yo bustahaan isa saara waxaan idhi cimrigay waxaan aan muhmal ku jiro oo aan caddaynteedii wadanin lama hortegayo dadkuna waayo waa adigoo kale laba midna haddii taajir laga riixayo oo dee tijaar la riixayo inaad erayaalo wuxuunba baan odhan lahaa laakiin dadkaasi waa dadkii dan yartaa hamiyey imikay nala joogaan qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay naba daawanayninba wuxuu yidhi cuquba halkii lagu galay cawda dhigata carruurtay ka laysaa ninkii caana baas dhamaa dadkaasi ilama joogaan maan la fadhiyin iminkana ma aaminsanin inayna daawanaya laakiin waxaan dadka halkaa fadhiya laba qodob weeye qodobka koowaad baan idhi waa gudaha maaha dibadda kacdoon dadweyne iyo ban iyo waxaasoon halkaa ii dhig waxaan idhi daawud garxajis siday u dhan yihiin bankaa yar bay eegtaan halkaana arab baa looga gelayaa halkaana xadkii baa laga gelayaa intaa yaree bana ayay dan yarta iyo ummadda dhani fadhidaa banka aroori lama mid aha hal jufo oo arda ayaa dega hase ahaatee haddii bankaasi uu yahay haddii bankaasi waa dowladdii baan markaana dhex maraysa arrintani haddii bankaasi uu yahay caws baa laydiin xidhayaa anaa ijiin iibiyey salax la yaalla ninkii hore layrka magaalada ka xidhayay baan u dhiibay maadaamoo ninkaa u dhiibay guddi baan u sameeyey waxna qiimaha ku ilaaliya danta guud oo dhanna bilaasha lagu shido casbitaallada caafimaadka iyo laamida sidaa daraaddeed haddii seeraha banka qool caday la xidhayo dowladay oo aynu seeraha xidhanayno ha la isugu yeedho dadkii deegaanka ha la yidhaahdo hebel iyo hebel baa laydinku dhiibayaa furaha banka qool caday oo marka abaaruhu yimaadaan baa cunaysaan hal mid baana dadka deegaanka odhanaya waxaan odhanayaa war ummadaha kale iyay xoolaha idinku soo dareersane ha idiin xidhnaadee furihiinna haysta dhibaatada ugu weyn ee iman kartaa waxa weeye qofka tegaya kaamtuug inuu soo yar wareego
oo taarkan airportku sidoo uu xanibay uu xanibo laakiin haddii qofkii meesha daaqayay iyo danyartii iyo reer miigii iyo ummadii xoolaha jinka raacaysay ee iska baahnayd ee danyarta ahayd ee neefka yar ee ariga meesha ku raacaysay ay iyadii munaafacaadsanayso iyadii u xidhantay waxaynu leenahay war qof walba intii aad dul taagnow taarkana ku dhex jir marna taarka banaankiisa joog waagii siyaad barre ay dadku ku dhimanayeen waqtigii Jaale Maxamed Siyaad Barre markaad ka tagto airportka magaalada Hargeysa ilaa intaad banka ka tagayso intaa waxay haydan guud hadda balo fiirsada weligii qof xal diida meehi weligii cimrigay sidaanu joogay qof xal diida yani wax kasta oo xataa la joobayo 59 angal baanu dhiganaa hadaynu sidaa u dhigna ka war waxaan marka airportka dushiisa laga tagayo ee la gaarayo banka inta dan guud bahay dhimashana way ka timi bal hadda halka u fiirsada maanta taajir kasta oo Daawud Garxajisi wuxuu xidhay dhulkii badna reer mi baa xidhay inta kalena markuu dan guud noqday taar lagu xidho aynu stiil dadka ka dhaadhicinay TV-ga aynu la soo fadhiisano waraaqana ku qora oo cadeeya in bankaasi uu yahay muxuu ahaayay inay dadka reer miiga ahay inta deegaanka ay dib u galayso shawir mooga abanaye culimadii ugu waaweynayda deegaanka ka soo jeeday qandaraaskii bay qaadanayaan boqoradii caaqilladii iyo salaadiintii iyo odayaashii iyo ummadii meesha fadhidayna nin walba mashruuca qaybtiisa loo shubay shawir moogaana haye ninkaygani waxaa noqday nin danyar iyo waxaan loo jeedin iyo reer mi iyo ummado ka hadlaya shaw waxaa laga sheekaynayaba war moogaana haye shaw qarda jeex baa mana hayba shaw waa mashruuc ka go'anba gar iyo gardaro halka markay maraysaan shibiska yiri waa la dareero wax lay Daawud Garxajis baa tagay Liibaan oo miyaanad baxaynin ma baxayabaan uquba halkii lagu galay hawda dhigataa baan ila carruurtay ka leeysan ninkii xana baas dhama idaacad kama hadal dibad kama hadal TV kama hadal waa wallahi hadda TV kama hadal wardiida ma oran yeela ma oran waan ka hara bustahanisa saara hadda caadi ma igu maqlaysaan bustahanisa saara kama qayb galin aragtida hadda maqlaysaan ninkii maayirka ahaa waxaan iri oo fariino faray war ninka isaga ah tagde intaan mooshin laga keenin oo aan xilka laga tuurin shalay wasiir baad ka carartay maantana dawladda haddaad ugu cararto tiraahdo diiday banka qool caday berito la cidi ku iibsan maysa carar ayaa lagu bixinayaa shalay haddaad wasiir ka cararto maayirnimadii oo sanadkaaga harsantay ay ka aad ka carartay nin baan fariino faraya maantana banka qool caday Abubakar Muuse iyo deegaanka intaas laga dalbanayaa inaad yaro madaxa ruux oo been u sheeg adigu been u sheeg hadda waa fariintii aan farayo adigu tago umada Abubakar Muuse ee waliba khaasatan inta Abubakar Muuse adiga lagu xil saaray madaxa ruux oo waxa tiraahdaa banka qool caday way noo faa'iido hal xidho hadda maqlaysaa inuu fariintii loo geeyay iyo inaan loo geyn inaan kiyo meesha taagan oo madaxii ruuxaya horta waan ugu yimid haddaanu ruuxin anigu xabsi baa laygu warwareegayay isaga waxa weeye mushmalkiina waa laga tuuri lahaa waayo xulafadan yar yar ee odayga ku xarafaysan ee uu jaamac hogaaminayo ee uu aabaha u yahay waxa weeye waxaynan arag wadwad ma laha wala daalin salaada marka la dhamay wala daalin baa la yiraahdaa wala daalin kuwaasi waa wala daalin halka markay noqonayso ee aan ka seexday ayaan fura waxaan waan taageerayaa waraaqi halaysiyo inaynu iska daba hadalnaa ma wanaagsanee waraaqi halaysiyo banka ما إلهي ستانا عاد قصة مولا سعطان بين على إلهي بأن نعي ولا إن نعلة الله على الكاذبين قفكي بين شيء نعضش ربيها كسو دكتو عادي ما إلهي ستان ودن كان شوقو لي صلاة مي قاديني يضا هالكاميرا يسا أي
aan warqadii soo baara banka qol caday waa munaafaqad saacadan aynu joogno haddaan qariyo waa munaafaqad oo de waxna waxa weeye xal waxna waa xul oo waqtigaa aan dalka joogay xal bay ahayd anigu sababta aan markaa ilaa adduunka cid lacag diida lama aragay sababta aan lacag u diiday ee inta 3,000 shir saxaafadeedka lagu qabanayo ee taliyuhu igu soo shubay waxay ahayd 3,000 shir saxaafadeeda lacagtii dambena gadaal baa layga siinay hadda qodobka caadi u dhigeysta wuxuu markuu ii yimi wuxuu igu yiri xukuumadii waan u taag la'anay liibaan bay tiriyay ana aydi last option kii baan u tagayaa inankaygu reer gabdoon buu ka qabaa anna reer gabdoon baan ka qabaaye double gabdoon baanay ana seedigay u tagayaa taliya bilaysku wuxuu igu yiri darajo waxaad u baahantay ii weydii seedigayo birmadka fadhiya oo cali siciida oo yarka waxa weeye seedigaya oo ina yar oo runtii dadka igu qiimaha badan la oo 7 sanaba waxa weeye aniga aad igu xidhnaa markii dambana aan xidid noqonay ayay berber taagan wuxuu yiri kabtan baan kaaga dhigaya waa shayga ugu qiimaha badnaa ninkaas iyo fargareeya aniga xaggayga nina seedigay inuu iska wanaajiyo waa jecel iyo kabtaniyo darajiye sarkaal baad ku aragto saasaan u eega waxaan xamsow banka qol caday baan kabtan siiyaa oo ku iibiya iyo darajo maya buudi hadda qolka caadi dhigeysta waa qiimihii aan ku ogaa ka yar laba dhalinyaro ayo midna ina moogo xuraan ka yimid midna meel kale ka yaba soo boodo waxay dhahan liibaan oo eryalladana laga qaaday eryallada noo weydii wuxuu yiri kuwana eryalladii baan siinay halka ka soo dhaqaaqay waxa waxa darajo bilayska uga baahatana waan ku siinaya saddexdaa kuna waa saxaafadii dawladdu waxay sheegtay in hadda in aanad afkaaga la dhex maraynin ma aha liibaan baa ka hadlay oo yiri war banka qol caday lama xidhin karo dawladdu waxay sheegtay in aan afkaaga la dhex mari karin shuruud kasta hadda maqlaysaa dawladdu waxay sheegtay in aan afkaaga la dhex mari karin inaad reer waxan dambiga ku mutaystaan idin sheegay afkaagan hal la dhex maro qof dambi ku mutaysta dunida miyaa aragtay markaan idin leeyahay war dalkii wax la aaminaadi iguma hadhin mana aha dhiiqa iyo xanfreesha iyo dawlad baa iyo sidan war wixii sababtii aniga aan idinku iri ay Facebook ku qortay dawladda banka qol xaday iyo dagaalkii aniga iyo jaamac inta dalka ay dhigto waxa weeye sababtiiba qisadii baan idinka sheekaynaya qisadii ayaan idinka sheekaynaya taliye markuu 3,000 ku soo shubaan ku celiyay waxaan taliye maya wuxuu yiri nambarkaaga ii qor beenaale ilaahay baan nacay waan u qorayo nambarkii baan u dhiibo oo ka qorta lacag buu ku soo daayo dhelim message baa soo dhaqday waxaan fadhinaa hotel ambassador qolka number 9 meelahaas u ahaa waa 6 May 5 galabnimo Faisal Xiis baa wada markan message-kayga baan taliye maxay tahay taliye wuxuu yiri shir saxaafadeed baad ku qabanaysaa waxaad oranaysaa banka qol caday sababtan kuugu yimina waxaan iri dawladdu waxay tiri liibaan oran maayo banka qol caday hal la xidhee oo lama dhex mari karo afkiisa maadaama oo sheekh iyo shariifba ay arrintan ogol yihiin TV-ga shir saxaafadeed qabo oo waxaad tiraahdaa ummaday faa'iido u tahay waa intaa dawladdu wax kale igama qabsan imay dilin imay dhibaataynin arrinta banka qol caday khusaysa waxay tiri lacagta qaado oo shir saxaafadeed ku qabo lacagtii kalena way soo socotaa waxaan taliye warka banka ninka war hayabaan aqoon yahana hadda maqlaysaa sidaa daraadeed intaan soo fadhiisto mushkilad abuuri maayo oo inay dhimasho ka timaado ayaaba suurtagala waanan hayaa taariikhdii siyaad barre iyo dawladdii muuse siiraanya wixii kaga dhacay iyo dawladdii musabixi oo cagaa ka laabatay tan maantana reerka inay iga sii kala fogeyso mooyaane dhiiri mooyaane faa'iido kale ay kordhinaysaa ma jirto sababahan u diidayna waxaa ka mid ah halka hadday caawa rasaasi ka dhacdo dee ummaddaas isnacaysa oo madaxa la isu gelinaya oo la xoqanaya oo siyaasi kasta dhan kasta xoqanaya dhinac kastood ka eegto qayb kama ihi inaan anigu intaan soo fadhiisto idhaahdo waa faa'iide dhageystay reer qolxadayo iyo dadka banka degano banka la xiro maalintii hore la tagayna waan ka fadhiistay
wuxuu waxay tahay haddaanad ogeyna oo aanad adigu fahansanayna oo aanad garanayna anu waxay tahay anna waan ogey dowladduna waa ogtahay taliyo waan ku celiyey maalintii la soo daayay reer gabdoonka uga sheekeynayay isaga laftiisu odayaashii reer gabdoona dhan waa uga sheekeeyey wuu igu soo celiyey buu saanay buu war waa yarad hortii beenna muu sheegin wuxuu yiri war waa yarad hortii anna reer gabdoon baan ka qabaa inankaygu reer gabdoon buu ka qabaayay horta balta arinta lacagta halka inaga dhig hadda maqlaysaa akis baan u shaqeeyaa maalintu jaamacigu yiri mooga dadka aynu ka reebno ka habu tagayay subaxii baan soo fadhiisto waxaan idhi mooga gudoomiyaha loo dhiibo xirsanam sharaxa noqdo waa akis waqtiisii baan idhaa ninkii waqtiisii baan idhi oo shantii galabnimaan horyaal TV duubayo yarkii horyaal iyo kamaradii oo idin soo bixin ayaa la qabta waxaan idhi arinta banka qool caday anigu sharra ku darsan maayo khayrna ku darsan maayo waxay tahayna hala tafsiiro anoo og waxay tahay waxaan sidiyaan cid dambe oo kugu soo habayaamay oo kolba nin leenan baan qabayo ku soo dul istaagay arintii taliyuhu intaas ku tagay shantii galabnimo waa tii la qaban doono maxaan haddaba uga qayb gali waayay arinta banka qool caday sababma ayaa wax umada u faa'iidaa anigu aanu diidayaa ma maqlayaa sababma wax faa'iido u ah umada aanu diidayaano ninkii ceelasha qodayay ah anoo markay duufaantu ku dhufato u dhisaya anoo inanka yare hohoode maradu kaga gubatay bakhaarka $1,000 iyo 500 u diraya sabab maan u aanan qayb uga noqonaynin ma hadiidmo laakiin intaan hadlo aanu oran waaytaa waay miyaan waalanay ma wax dan yarta iyo reer miiga faa'iido u habaan diidaya maxaa se keenay in iyadoo oo airportka ilaa iyo ina guuxa xadka Somaliland iyo kii Soomaaliya horaba siyaad bare iyadoo dan guutay ee xaji Cabdiraab dul taagay dad ugu dhinteen maxaa keenay dawladii Sirayna dad ugu dhintaan maxaa keenay dawladii Daahiriyaan dib uga gurato maxaa keenay tii Musabbixin dib uga gurato sabab ma bal isweydiiya waxa keenay isdiidmo qof odhanayo waan ku xidhaya oo furaha idinkaan idin siinaya oo waa guddi maxaa xasaasi ka dhigay waayahay horta waxa la yidhi cid waliba way yeeshay dadkii waaweynay liibana maxaad u diiday dadka waa la biiliyaa jaamac wuxuu diraa guddida garxajis lacagtooda iyo biilkooda gacantiisa ku dira dadka qaarkood markay liibana jaamac maxaa loo dhexgeli waayay qof qandaraas buu sugaya qof waa la biiliyaa qof biil baa la siiyaa culimada waaweyn deegaanka ka soo jeeda qandaraaska banka qool caday iyaga qaadanaya hada su'aalkaasna qodob maaha iyaga qaadanaya salaadiinta madax dhaqameedka ilaa koox dhan reer gabdoona ku jirto oo biilka qaadanaysa maaha wax qabiil ku salaysan waa ashkhaastii dadka deegaanka haddaba maxaa dadka loo laaluushaya maxaa qandaraasyada loo siinaya maxaa aniga laaluush laygu soo shubaya saasha isweydiinta mudani waa taa maxaa wax aanan markii horeba shar iyo khayr waxay tii aanan ogeyn loo odhanaya uga hadal maxaa khaldan qodobkaas caadi maydaan fahmin dee waa garanaysaanoo dowladdu il quraanjay leedahay alcadaalana isha takfiday leedahay hadda caadi u dhegeyso soomaalidu waxay tiraahdaa dowladuhu il quraanjay leeyihiin alcadaalana isha takfida ayay leedahay takfisa u garan maysaa qaxoontiyada qofkii joogayo injirtiya takfida soo indhama laha indhahaasi alcadaala leedahay buuggii baan rogay anoon dowlad iyo shacab midna u danaynaynin baan buuggii rogay gaaladu waxay leedahay lafdhabarta dhaqaalaha ee xoolaha nool ee Somaliland waa xoolaha nool qodobka caadi u dhageysta gaalada markaa ma khaldana lafdhabarta dhaqaalaha ee xoolaha nooli waa neefka xoolaha ee la iib geynayo lafdhabarta dhaqaalaha Somaliland waa xoolaha nool neefka la iib geynayo neefkii markaa wuxuu u baahan yahay inuu qiimo badan dunida idinku tago hadduu ka degayo Sacuudiga iyo haddii warshad hiliba oo la googooyo lagu samaynayo marka uu nin taajira oo ganacsada ari ka soo iibsado gobolka Nogob iyo Liibaan iyo gobolka Jarar iyo ogaadeen duleedkiisa anoo Liibaan aan ari ka soo rarto
waxaan soo rartay 3,000 oo neef 3,000 ee neef waxay u baahan yihiin waxaan soo siistay min $40 $40 ee 3,000 ee neef soo siistay marka aan toos berbero ugu rogo te waa $40 waxaa laga qaadaya $8 dekada iyo $10 raritaana neefkana de miisaankiisa qiimihiisa intii buu taagan yahay neefkana miisaankiisa qiimihiisa intiisii buu taagan yahay waayahay marka uu ganacsade taajir liibaan aniga tusaale ahaan aan soo raro 6 elataray 6daa elataray waxaan ku rogayaa taarka banka qool caday oo imaara carabtu muxuu ahaa qoladana jaanibka xidhaysa ay ku rogto meesha waxa laga furayaa xanaanadii shahaadada waxa la siinayaa warqadii caafimaadka waxa la siinayaa cawskii baan cunaya waxa lagu daweynayaa talaalkii caafimaadkii neefkaygu wuxuu istaagayaa $150 adduunyadii way ii faa'iideyso neefkii aan $50 ka soo siistay gobolka Nogob iyo Jarar markaan keenay bankii qool caday taarkii ku xidhnaa wuxuu ii taagay $150 aaga warshadaha salaxlay agteeda waxa laga dhisayaa warshad imaaraadku hilibka qayrin ku qaadanayo ganacsadihii ama halkaas uu ku warshadeynayo waa la dhoofinaya ama dekadii berbera laga rarayaa oo waxa la dhiibayaa $8 cashuurta iyo 10 raritaanka lacagtana waxay ku dhacday jeebkii ninkii taajirka ahaa ee adhiila ahaa cidda doonaba ha noqdo hadda halka caadi dhigaysta waa adhiila liibaan oo aan banka qool caday warigii arag ayaa soo raranaya 15 elataray dawladdii markaa maxaa ugu jira dawladdii waxay ka qaadaysaa ama cashuur ha marto ama meel kale oo dadban ha qaadatee waxay ka qaadaysaa neefkii $30 waxaad soo siisatay $50 dawladdu waxay ka karaysay bankii qool caday iyo cawskii waxay ka karaysay caafimaadkii waxay ku siisay shahaadadii waxayna ku siisay choice aad berbera ka dejinayso markabkii ama aad warshada hilibka la googeynayo imaaraadku qaadanayo aad geynayso su'aalkaas laba qodob maaha maxaa ugu jira haddaba kumanaanka qoys ee banka qool caday jooga ee aan elatarayga iyo dawladda cashuurta qaadanaysa iyo sacuudiga neefka quruxda badan la qaadanaya iyo maxaa ugu jira isweydii maxaa ugu jira xalka markaa muxuu noqday inaanan maalintii la tagayna ka qayb gelin lacag la soo shubayna aanan ugu hadal hadda qodobka caadi u dhageysta wixii xaaraani waa xaaraan ala inna naclata allahi cala alkaadibiin waxaan ummadda waxa la yidhi hebel wuxuu qaatay taarkii oo sheekh hebel suldaan hebel wuxuu qaatay intaa hebel kalena wuxuu qaatay intaa hebel kale lacagtii waa loo shubay waxaan idhi hebelada iyo hebelowga la biilinayo iyo ka qandaraaska qaadanaya midnaba aniga waxba igama gelin ala inna naclata allahi cala alkaadibiin midnaba aniga waxba igama gelin anigu se waxaan idin weydiinayaa taarkaa marka la xidho guddida deegaanka ee dadkii meesha deganaa ma loo dhiibaya neefkooda ma naaxinaya deetana ama ha warshadeeyaan ama ha dhoofiyaane neefkaa markay naaxiyaan ma la geynaya liibaan ma dictatorba ma taladu qasbaya mise waa calaamaatu yowm alqiyaama calaamadaha yowm alqiyaama la yidhi war qofkii yidhaahda sidaa ka daayo xaqa ka hadla ayaa dhanka kale loo rogaya beentii baa run loo rogaya xaqii baa baadil loo rogaya kicin dadweyne iyo bulsho miyaan idin soo hor fadhiistoon idinku yidhi anigoo intaa og ka daayaay ka qabtaay miyaan idinku idhi ala inna naclata allahi idinku laftiinu haddaa been sheegtaan ayaddu waxay leedahay ala inna naclata allahi cala alkaadibiin ma dad baan idinku kiciyo waxaan idhi ka daaya reer qolcaday oo qoriyo gurta war waxaasaa idinku soo socdo miyaan idhi khalkhal ku jiray iyo tuugnimadii meesha ka socotay daraaddeed ayaa anigana laygu wanjalay laakiin anigu waxaan diiday inaan lacag ku qaato arrinta banka qolcaday waxaanse diiday maalintaana inaan ka qayb galo individual choice baa la yidhaahdaa shakhsi leeyahay ninka maanta qool caday doonaya anigu inuu igu laaluusho shalay inaa maanta suudhku xidhan yahay baan iibsan lahaa muu xidhnaadeen maanta nin kasta oo suudh xidhan
nishaarkiisu cad yahay haddaad aragto nin baa dhoobada ugu jira siciid sulub oo kaftamaya intii hore jaranaya ayaa ambaasadoor ay halkaa ka taagan yihiin soo dul istaagay anoo lugtii ka dhutinaya waana kaftan yaqaan oo dee dadka qaarkood way xanaaqeen anigu laakiin dee siyaasadda arxan isugumaanaan haynin wuxuu yidhi waxaan fadhiyay goobtii liibaan uu 5 milyan ku diiday haddaba wallahi waa siciid sulub iyo garxajis oo dhan ambaasadoor aanu fadhino maalmidoo talay soo daayey anoo lug ka dhutinaya saakase waxaan hayaa buu intuu jeebka saa u geliyey $1 oo tigir uga dhigo oo caafimaad ugu baxo haddaba maqlaysaan yacni siciid waa nin rag oo waan isgaranaynaa ma $1 iyo caafimaadka iyo intaa dambe oo annaba horaan u soo qanjiiriyey mise inuu markhaati uga furay inuu goobta fadhiyey aan $5 milyan ku diidayey in saaka inta lay soo hor fadhiista la yidhaahdo danyar taasi siyaasad bay ahayd rag tijaaray ahaayeen siyaasad bay ahayd saaka inta lay soo hor fadhiista in laygu dhaha 3 kunna saxaafad ku qabo lacagina way soo socotaa hebel baa yidhi hebel baa yidhi dadku hadday political prostitution noqdaan ma ka qayb galbaa haddii ummadda la iibsanayo ma ka qayb galbaa shalay caarra iibsado ina xirsiqanaa lacagta soo qaaday siciid garxajisay u dhamaayeen buurtaasay ku dareereen lacagtay kala qaybsanayeen oo aan kara guriga laga iibsanayay ma ku dayay ahayd waa maya way jaalayaal wixii qaldani waa qaldan yahay soo dacaadii ma maqlaysaa wixii qaldani waa qalad qodobka iigu weyneenan ilaabeen 3 qof bartaa markay ku dhintaan ninkii danta iyo siyaasadda lahaa habar yoonis baa laysay ciida gale reer migi baa la isku xuqayaa tolnimadii iyo reernimadii aan isku ururinayeen damage baa lagu gaarsiinayaa yes maalintu xaaji cabdiwaraabe taagnaa ee 8 ku dhulku dan guud wada ahaa ee kacaanku maamulaya dad baa ku dhintay dawladii axmed siiraayana dad baa ku dhintay yaa garantiin ka dhigaya maanta inaan dad ku dhimanaynin cidda ka dhigaysa waayo warma ninkan garxajisnimada u midaynayay ee aan xisbigii u cid u cunay ayaa caawa aan ku dul daawada banka qool caday baa 4 qof ku dhinteen maya weeye munaafaqad weeye aan inta ka hadlaynin gudi la biiliya ka hadlaynin suldaan aanu ka hadlaynin caaqil aanu ka hadlaynin labada qodobba waan ka diiday laakiin fidna ma abuurin qool caday intaan tagay shir saxaafadeed ma qaban reer miis kuma soo ururinin fidnada ninkii toosiyaalayna naclatallahi cala aldaalimiin baa lagu leeyay way hurudaabidu rasuulku qofkii toosiya tolkoo toostana adduunkan ugu nacabahay iyana waan diidanahay jaalayaal midaan ogolahay oo aan raalli ka ahay iyana may ahayn caqliyan iyo sharciyan mid waa dadka reer miiga ee taajirku ku duldanaysanayo qodobka labaadna waxay ahayd dhibta ka imanaysa waa arkaysa 15 qof oo qorisita maxaa ka dhalanaya garxajis weynayno reerayno naye halka markay afar reer miyi ku dhintaan madaxweynuhuna uu cirray yahay maxaa ka dhalanaya ka jawaabtay lacag baa dadka indha tirtiya power reernimo inaan dal laga lahayn oo ay ragaari mashruuc iyo wataana taasaa tilmaamaysa waana waxyaalihii lagu khiyaamiyay munaafaqadu ay kowda ka ahayd inay reernimadu been idinka ahayd ummadda in la isku hayaa inay been idinka ahayd inaad suudhan xidhateen taasaa ka koowa haddaan markaa aanan shar abuurin ma in qaswado laygu abuuraabaa afkaaga aanu dhex marno war afkaaga aanu dhex marno ma in xabsi iyo mu'aamaraad aniga jaamac naga dhexeeya taa laysoo dhex maraabaa labada qodob ee idinka diiday waa mooga dadka aynu ka reebno qodobka labaad ee idinka diidana taas ay ahayd wax ku dara tiani jaamac gaabuush banaan bay ahayd oo macshar bay ahayd oo wax ku dara laba nin oo ilmaadeeraan ahayn odayga dalka xukumaana uu dhex noo ahaa garxajisnimaduna dhex noo ahayd cadaalad iyo xaquna ay dhex noo ahayd kaayaga la doonana garta la siinay aniguna aan dambiile ka noqonay isna uu dambiile ka noqon karay tobankana waa aniga imika idin sheegay wax dambi lagu mutaabaa ma wax tacaddi iyo fool xumo iyo gunnimo lagu mutaabaa jalaafooyin isaga laftiisa ku soo socda qaar aan uga digayay bay ahayde ma wax lagu mutaabaa mise iimaan la'aanta dadka indha tirtay oo magac iyo maamuus in laga taga la dooni maaye waa la iimaan beelo sheekha iimaan beelo suldaanka iimaan beelo caaqilka iimaan beelo ka kala iimaan beelay oo la iibsanaya idinkan idin iibsan leh
كبيل كمان تلصيني وما هشام بيله هدانو كو إيبسن لين فرتن إسلام ودو ريرمية ما نان إيبسنين هنقو أرانا نقا دنيا ريبسو هنقو أرانا نقا إسلام تكبالا إحولا شيطان راعدا يوديق الريرمية إحولا شيطان راعا يبقى قول عدي كدر حميسان هنو أرانا إيبسو ديوس كمنافقة يا ما انتو إيبسن أيانو إيبسن لين إلا بيحاد لك حكومي لها صاد أنقو نساكا نقول لها إسلام كبالا oo dar xumaysan oo banka joogtiyeen yaro in dhacsaas reermiya ku dul shaco tijaariga ku dul ganacsato no ma ha ku xumaynayo xanfareesha iyo dawlad iyo dad baan wada hadalay war halkan ii dhiga waa labadii qodob siday wuxu dhaceen maxaa aniga iyo kooxdan isu kaaya keenay maxaa tacadigan iyo dhibaatadan mid waa laaluush qaado been sheeg ma hadiid ma xataa markaan arkay in culimadii u waaweyneyd ee deegaanka fadhida khamiiska ay soo xidhatay garka waaweyneed mashaariicdii iyagu qaadanayaan markaan arkay in suldaan iyo boqor iyo caaqil iyo sheekh iyo shariif nin waliba uu dantiisa raacanayo ayaan cuqubaalkii lagu galay cawda dhigataa layna naclatallahi cala alkaadibiin ma inta lacag qaadataad kidaab beenaanaa reer miigaa ula tegi doontaa halkay doontaa ku biyo shubatee maya no raggii shalay igu dhicin ra iibsa waan ka diiday kuwa saa kale mooga dadka laga reebo oo gudoomiyada looma hayo masharaxna looma hayo xirsiyo cirra taagan ee dad weynaha laga reebo hal la caayo oo hal eeriyado iyana waa ka diiday min baa ninka wanaagsan maxaa khaldan no qiimo ma jirin shalay tole ninka igu dhac cirra reeb صدن نينو ganacsato garxajiisa cir roog yahay ayaa halka ay soo fadhiistay xirsiga leenaga siiyay waa reerka taladiisa qayb baad ku lahayd ka daa oo ninkan dadka ka reeb ma yaaniri تابع قابوشين يسقى individual اللوضة ينتو يمادو إنه يقول يلاحظو موجودة ككره مو حني بسن كرا ما يوي stupid what the most stupid ideology يا عرفتي وحسب مودي أنا نقول نسول لنا إن وحيلا قار كل ديمان لقلا اللي حطو no هيك لا وايسكا وآ سو كلار ما تاسي kuwa iyaguna dhex qaadaya talnimada wax ka raadinayo war dadku wada dhashay wax doonaa isku qabo wada dhalashadu waa dad wada dhashay sinjeeda sheekh saxaaqna wax laga bedeli maayo takar xajeedna wax laga bedeli maayo umadanina runta iyo caafimaadkay ku walaaloobaysaa been iyo munaafaqad iyo wax dhow isku wada qarxa lagu munaafaqadoobi maayo nimankana waa siyaasiyiin danahood iyo kursigooda fuulay wax garxajis la yiraahdo meesha lagama yaqaano diinna lagama yaqaano annagaas dadka iyaga ilaashanayno isku haynayna inay dhimasho ka kala dhex timaadana diinayna وحين هذا كله لور رجع ديدينا طير تيدا الخيامية ديدينا أما بقى هذا هالنقطة ما ملك هالنقطة مل تهجر دنير كوب بابينا يرالي بكبي بالنسبة للدين ما غلا يصير تناس يا سيدي وين بنو كل جوسو وين عندنا حنا الله الإسلام كبلا وحكا جوسو أو قصب كده سير هذا كعند دوينية بنك قال عضي وبنك قال عضي ساكانوا كلنا أنا قلت عينين كده عند ما شكت مع الضوء والله لا مدحوينها بريوني سعيدة قال الله أنا أكل كدا فموسى كلابتي كدا يسقط رير سمطرة وحلوة التجار حلوة كدا تيسير يلا قلنا طيب يلا الضلكوا وددنكوا ديو كعانكم معمولو حاج عبد الوهاب وتاجنتي لما شاطوا كنت مكدا كدا أنا أكله حلقة دحلاوات دقنيمو إيه فواحش إيه عيب ما راح يرمى إيه كدا أنا ودتك عينين كوا كعينا فردي الله كودنا كدابان كله عاوان كله ينص عدارة إذن لي كداية محر ما يكداية والدين كعلنية لو قلنا حين ما يأرد تهجر ليه كداية ننهلنا اللي إري ما يكداية للي يراد حبارة لقو فنقرين ما يصاعا يكداية موشين كبانتا كداية تليفون كان مدحتو يدك قاعدة يسان كداية عرين اللي بهدلوان ديدانين كداية موجين اللي بهدلنا وانو ديدينا كداية هانك إن لقى قفك لقى لا دقالما عرو فيصل كيمي كدايانو نري حكا لا دقالمين عرو هادو ساك عرو كتاقو حسبي كلا تقانا كداية هانك حكا لا دقالمين حاقلدان هدي الدن بتاعنا قالينا توقتا هدي الدن بتاعي أنا عيري قضبضا ينسكو هايسان أنا والله بضا وحكا لكو جيرا مجرى قضبضا الله يقول ماقينا والله بضا dhibtii labada iga soo gaadhayna waa inta
haddaan ku khaldanay anaa idhi haddaan waalanay anaa idhi haddaan miir qaba anaa idhi anaa ku celinaya qodobka sabcaad u garan maysaan banka qool caday shakhsi baana talaan ku darsaday tan imika live-ka ka leeyaan ku darsaday waxariigama joogto weligeyna ma dul istaagin inaan lacag qaatoon ka hadlana anaa idhi nin hortaagan oo qori la hortaaganna ma yihi qurbahan saaka ku noola talaan ku darsaday lacag laaluusha qaado oo been sheeg oo miyaan dhulka laysku haysto maxkamadaha kaga markhaati furo miyaan dhulka laysku haysto subax walba u kallaho oo inaad caashimo lehe cibaada le calimo lehe cabdi baa le qowlalada intaan caddeeyo miyaan markhaati beenaale ta dhulka ugu qiimo badane oo subax walba shaqo laga abuuraya miyaan idhaahdo taliye madaxweyne miyaan taa idhaahdo wasiiro miyaan taa idhaahdo xukuumad miyaan taa idhaahdo markhaati beenaale haddaan ahay waxaan ogahay aan been ka furayo oo aan islaan dan yaro indhacascas iyo reermiyo xoolo shaydaan raaxa oo iyaguba ka aradan oo bankaa dul taagan intaan u tegayan been u sheegayo miyaan maxkamadaha Hargeysa ila dariskaa baska 2000 u raaco baska 2000 miyaan u raacon ku soo dhaarto onaada nusbaloorkan caashaale aanu soo taagnaa subaxay seeseysay waxay weydiinaysaa waxa أنا شقة هرجيسة كبنان شقة هرجيسة كبنان وي وحنا سكا أنا قصاك يدين هو استاجينين ماشى السلطان في إيبيي عاقل في إيبيي الشريف في إيبيي السياسي قدر له إيبيي كقندراس لدل إيبيي دير تلا إيب سدي ودري واحد يا والان الواحد بانكاه تتكديجان كله ديد ما يلا يجعله لكن وحوح إنا أنت طي وحو إنا أنت طي تاوية موضوع أنا وذين شري سومال لأن إسكاك سهرتشيني كلام كوا هابان دكور يا إدري تتبص أنا إنا فردي يا إدري إنا لالوش جدي يا إدري إنا كهل يا إدري تان ما أنت لواسي stability يا إدري يعني عيب هين يا ندري شاليا انت ندريسا وايو قيب waxa ku qoran in imaaraadka khudrad looga beero oo Suudaan dagaal ka dhaceen oo reer Sheekh Said ay ka beeranayaan khudrad qaybna waxa ku qoran in xanaanooyin laga dhigayo qaybna waxa ku qoran qoladii farmaajo waagii bay weydiiyeen imaaraadkiyo ay xagga yar tageen oo xaggina way afgaran waayeen beerahan channel iyo area ku yaala dad baa yeeshay waa lagu kala tagay waa ay dawladda ku qasbaysa madaxweyne go'da yar iyo go'da weyn gee taarka yaa faa'iido diidaya Musa Abdallah ugu baahi badan inaad taararo xidho ana kule سعد يونس إنه جوجي يحبر لمان هدي شن يتوقف في قرية ستان محل مشكلتكم فريسة هداد وانا قوة ضدك الديجانك أو أي حكومة وانا قوة ضو ماذا حوينا بنك كرمانجي سعد يونس إيا بعيدة أي فايدة سنية لكن أمدا قرية ستة محل يسوق مقيقية وفي صعب كهذا الحيلة دي كنت محل بينك الله طمع والمشكلة الهرقة اللي يسكت لي جديدة wax walba waan iri banka geeyaan iri karamaan geeyaan iri aroori kaag sameeyaan iri ka daayaan iri umada dhimanaysa dhinac waxaan ka ogahay wax yaala dhinacna waxaan ka ogahay mushkiladda madaxweyne Gadabuursi banka waxaad siisaa Gadabuursi bay faa'iido u teesi banka qool caday banka qool caday banka qool caday filimka qool caday waa filim fashilan oo Siiraanya ku fashilmay oo Muuse Faraak kaga gubto iskaga cararay wili warabtiyaasha isku seegi meeyno oo daahir riyaal la iskaga tagay oo xukuumad waliba ku tagtay kumna haday ku kufraya kuna ku muslimayaan daalin ka qayb gala banka qool caday noqon maayo hadaad fahamtay daalin ka qayb gala banka qool caday noqon maayo haduu faa'iideeyeen intaan caaqilku hay waa 36 ardaa
أرداقد أدوكو كسو جيدا موسى عبد الله وجي بنكا أنا أو عاقلة أنا وسحيحية وجي حد كنت دي مدحوين أنت كنت دي موسى عبد الله وقال عمرك كل دريسك وجي عبد الله يسحاق وجي هذا المغلى صار حمر وليه حناقنا يجوا ويبهنطيه وجي وكرسي يجينو كقادناي بنك رير سمترجي بنك عرب وجي تليا بليس عرب بين سلو وددنا وينو ديسايناي بنك عرب حد ابتياشي بنكودا وحد ومشروع عنجي لكن قال عضي بنك قال عضي بنك قال عضي ابتياشي وحد وهو فايده حرشين بنك حرشين بنك نحد سعد موسى رئيس متربه بنك بربي ليهين وفايده يو موسى وييرو بنك دنك كلا حد واد فهمت لكن انت انه العقد يدين المشاريع ديدين حكومه reerkayga kala diraysaan dhimasho ka imanaysa markay dhimasho timaado habar iyo nisba ciida galalaysay ayuu siyaasigu oranaya ceebina way ka dhalanaysaa halkan ka eegay waa qodobka kale ka eegayna waxa weeye in qoysaska danyartay degan iyo dadkii deegaanka maxawdana reer dhalo ciida galalayda banka sheegtay ma afarta oday ee la soo laaluushay ayaa qaadanaya dhulka Siciid Garxajis iyo dhulka Daawud Garxajis isma leeka laba talaabo markaad qaado in guuxaabad galaysaa banka yarna reer dhan oo ciida galalayda baa sheegta uu dul taagan yahay miyay isleegiin aroora la xiray aroori ardaa Muuse Cabdalla kamida ayaa degi kara miyay isleegiin labada bar madaxweyne isma leeka inanka yaray siraahda kamtuug qabo intaas 20 kilomitir buu soconaya arab buu si dhaxmaraya marka banka la xiro qaybna imaaraad loo beero qaybna tijaarta xoolahooda lagu naaxiyo dadkana la barakaciyo inta kalena tijaarta reer gabdooniya in cali deeq iyo hebel iyo hadda maqlaysaa hebelowga mashruuca qaatay ee Bakar Muuse iyo hebelowga reer gabdoone ee mashaariicda sugaya iyo hebelowga kale iyo hebelowga adbiilka u dirtay jaamaca Bushbiilasha u diro intaasina waxba soo kordhin maysa ee way kala yaacayaan subaxay dhimasho timaado annaga inagu soo haraysa annaga reernimadayadii iyo ummadayadii madax isla galaysa dayartayadii dhulkeedii waayaysa taarkii airportka taarkani xidhaya FTV-ga halala soo fadhiisto hal qodob baan Soomaaliland ay idin leeyahay وانا ردي كو علينيا يا الا ان نعلة الله على الكاذبين تكو بeenaalayaasha hal qodob baan idin leeyahay inta aan sheegayba haday beentay wasiirada ganacsatada culimaa diinka boqorada iyo salaadiinta uqaasha iyo madax dhaqameedka intuba ha soo fadhiisato TV-ga oo ha yiraahdaan banka qool caday baanu xidhaynaa guddida deegaanka la wareegaysa waa caws abaaruhu markay ka baxaan ay galayaan soo halkaasi qodob maaha beenaalaanay haddaan markaa ka soo horjeesto dhibta ugu weynaan idiin sheegay waxa weeye in 20 kilomitir la soo wareegayo oo dhulku kala go'ayo deegaanka dadkiisu laakiin yaa qaadanaya dadkii deegaanka reer miyiga ariga lahaa ayaa qaadanaya oo ku jiraya cid kale ma soo galayso ganacsade xoolo wataa kuma naaxinayo halkaan ma maqlaysaa imaaraad qayb khudrad looga beerayaana ma jirto qodobkaana ma maqlaysaan jaalayaal hadda caadi ma maqlaysaan ma la maqlayaa وايه اوكي عدكو وايه جود هدي انتا TV lala soo hor fadhiisto 5 bilood baan dalka joogay meel quraata oo lagu leeyahay oo lagu saxeexay oo waraaquhu yaalaan ila leeyahay dadka danyartaa baan u xidhaynaa caws ay ku badbaadaan waqtiga abaaraha
oo TV lala soo fadhiisto ilmaade rayaalow nin waalan oo qalalaasaabana ciddii tiri baan hadhow mas'uuliyaddeeda qaadanaysaa guddida loo dhiibayaana reer miyiga iyo dadka meesha degani ha iska soo saaraan guddi furaha u qaada intaa haddii la yidhaahdo anaa live soo gelaya u horeeya oo dhanaya waar aqbala intaa yar ee arab sii dhex maraysaa naabtiyaalow iska ilmaade rayaalow aqbala kaamtuug markaa tegaysaa anaa kow ka ah oo aqbalaya iyadoon taliya lacag igu soo shubin iyadoon cid kale igu soo shubin laba qodob baan u aqbalaya qodob waxa weeye ariga iyo looda galbeed ka timaada markay tooda soo yara daystaan tanay daaqaan deetan waxa la war halay noo xidho eeg qolana iyo qolo cawskeeda ka daaqin qodobka labaadna waxa weeye abaaraha ku badbaada weliba halkaana dulmi baa ka jira qodobka isaga laftiisa dulmi baa ka jiraya waayo markay tijaartu dhulkii wada iibsatay xidhay qaybna ka qaateen golayaasha deegaanka islaxlay habartii dhulkaana aan lahayn taarkana dawladii ka xidhatay inta aanay abaartu imanay barwaaqada tay meel ay daaqda ma laha sawcaadi ma maqlaysaa inta ay barwaaqada tay meel ay daaqdo xoolaheedii iyo arigeedu ma laha waayo qaybi waa taar qaybta labaadna waxa weeye tijaar baa xidhatay qaybta kalena waa beerada leeyay ta aan iyadu wax xidhan taajir dhulu xidhayana ahayn taarkiina ka xidhan yahay markaa xoolaheeda halkii la tegaysaa ka u safraya kaamtuugna 20 kilomitir buu dhanka u soconaya isagana safarkii waa ku dheeraanaya ilaa uu banka arabka qaybtiisa arab u dhex maro halkaasna waa dulmi laakiin waxbay dhaamaane iyagaa loo xidhay islaanta meehanaabaysa markay abaaruhu inta kala haday doonto xadka baa ka baxday marka ay iyana ka reer miigi marka ay soo noqdaan cawski iyaga ale hadii loo xidhay dadka ay isleediin waa madax dhaqameed iyo culimo iyo salaadiin waa khayna masaakiin waa khayni adiyada qof walba lacag raadinayo qodobka ugu badan ee idina ay iibsateen shacbi ahaan u iibsateen waxa kow ka ah oo qof hadaanu idinka soo raacaynin aanan idinka aqbalaynin miyuu dhargu cuno cabo saxbaana wariya biyo iyo cawska loo dhigayo shalay miyeydaan ogeyn Soomaaliland oo sidaa wada fadhida kaliya inaan idaacad furtoon banaanka taagnaa miyeydaan principle-kayga shakhsiyadayda aqoonin miyuu cabo miyuu fadhiyo banka isagu kalibu ka yey de kalibaan ka ahay laakiin no tayda lagu ma darayo waa hal baan andinacho liibaan lagu kordhin maayo af iyo adin in masaakiinta lagu khaldo dadka deegaankana lagu khaldo andinacho shalay lagu ma kordhinaynin in ninka kursiga fadhiisanaya cidii hor istaagtaa taana sax baan ku ah andinacho lagu kordhin maayo ninka warshada ariga samaysanaya qalaya ee ariga imaaraadka u dhoofinaya qandaraaskii dawladdu la gashay maxaa dadka deegaanka ka saaran taajirka arigiisa ku naaxinaya ee cawskii biyihii loo dhigay xanaanadii iyo shahaadadii la siinayo dawladda $60 bay leedahay taajirkuna xoolihiisa iyo nafkiisa u siyaaday maxaa ugu jira ina ka reenda cascas le kaamtuug iyo dhimbiriyaale iyo ina guuxa iyo banka qolcaday fadhiya maxaa ugu jira liban ari ma raacay passport Ingiriis u jida waa aqoon-yahana saakaba waa ka iskaga soo baxay maxaa ugu dhex jira inta kale fataalnimo ugu jirta iyo political prostitution ka ganacsiga jidhkooda sheekh jidhkiisa ka ganacsanaya iyo suldaan jidhkiisa ka ganacsanaya iyo caaqil afkiisa ka ganacsanaya iyo nin xil ilaashanaya iyo qaar la qasbayo dadku waa inta midna meehi political prostitution kama aqaano ka ganacsiga dadka dan yartaana ma aqaano lacag la isku laaluushana ma aqaano maaha qarxin iyo cid ku kicid iyo cid mucaaradid taariikhdana waa markii koobaad ee wax qofna dhex marayaan soo dhigo musabbix iyo mucaaradkan isugu fogeyn ayaa hadaladana dhex mara iyo wasiiradiisa aanan soo dhigaynin tanna waxa keenay arinta xariga ayay igu kaliftay inaan rasiirka ay soo dhigo dhaqaniga mamnuuca marka arinta qool caday dawladda soo dhexgelisay sababtaas aan idinku tafsiira
بنك قول عضينا أنا إذا لا شخص بنك هاي وإحنا كصابيرين مايو إحنا كديدي مايو لكن لا يما أديك سنكرو كدلايسيغا afka qofka aadamaha lacag lagu laaluushayo ee political prostitution qayb kamihi ilaahu ma adeerkay dawladda fadhiyo no ree qool caday hadday aqbalayaan iyaga le liibanaani kuma raaco hadday diidayaanna iyaga le liibanaani kuma raaco laakiin cadaalad darro I will not be part of it qayb kama noqonayo warjiraana cakaaro iman qodobka jaamacga abushanisaysanay iyo tabanka qool caday iyo qisadii waxa weeye dhibta lahayd inta bay iga soo gaadhayna abidkayba waan jiray dib intuu jiray I will survive and I don't give up rajada iyo quustana dhisiisyada iyo xanuunka aadamaha ku dhaca ayaan waqaanaa I don't give up and I will never give up ما قوستو ما نقوصناyo ما joogsado ما joogsanayo غلط وغلط حرام وحلال وليس بينهما متشابهات markay aniga ay afkayga noqoto madaxweyne banka qool caday waa deedi reernimada iyadu ku burburayso umadana siyaasigu si qaldan u adeegsanayo waa quud xaraana كمشروع عقاتي وحرام انت الدناها يقندراسية سوغيسا وحرام انت إلا مقعابي سوغيسا وحرام يو آموسا انت إلا مقعابي يحلكو دكو إلا شنيسا وحرام توقع خميس كحيداني وحرام سلدانك السميي وحرام لولك سعيد قرحاتيسي داود قرحاتيسي اسم الله كومان دوران إنا تريركا يقا كلاقايسو كومان ديسين in dhimasha qol caday ka dhacdo oo Muuse ka xishooday koomaan dhisin inaan Faysal ka reebo adigu 44 sitaan ku raaco moogo wax sitana laga kala daadiyo koomaan dhisin inaad igu jujuubto islaan dan yara lacagta qaado oo adeego oo aad ii soo dirto ninina qaba banka qol caday gabar la bixiyay maaha fijaanina la raacinayna maaha ما حرمايو وحرام مدحويني وما داتay soo fariiso oo cadee banka qool caday inaad gudida reer miyiga deegaanka jooga aad furaha iyaga u dhiibayso cawskana ay ka guranayaan wax u dhaxeeyo kale ku dhex jiraan aanay jirin sababay dhimasho u timaadamiyay jirtaa madaxweyne ree qool caday shalay ina moogaad u dirtay way soo wada codeeyeen ana di dirtay way soo wada codeeyeen codkoodii ma dhimasho goynaya ma cabdidheerood u dirtuu goynaya rasaas la galaa ma qandaraaska in cali geedi iyo salaadiinta meesha fadhida ayuu jaraya wiilka dhintaa ma dollar baa la sarifayo dawladnimadu sarifanayso inanka yare reer miyiga yaalla ma dollar baa dhulka guud iyo danta guud ee umadu leedahay ma dollar ba mashaariic imaaraad laga qaadanaya no ka joog madaxweyne dib uga fadhiiso madaxweyne midnimada reerka ha naga dhaawicin madaxweyne wixii kugu ceebi waa nagu ceebe ka joog kada aad iyo aad baa mahadsantihiin